السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteena youtube-ka iyo asxaabteena naga xiran facebook page-keena katso iyo asxaabta tiktok naga xiran ba dhammaantiin soo dhawaada. magacaygu waa suldaan aadan. maanta waxaa inoo hayaa video ku saabsan haddaad message aragtay odhanaya your snapchat has been locked. laga yaabaa adigoo snapchat-ka ku jira inaad message aragto message-kaasoo odhanaya inuu snapchat-kaaga kaa xidhmay. snapchat-kaaga wuxuu kaaga xidhmayaa laba midh, si amba permanently oo si joogto ah, amba wuxuu kaaga xidhmayaa si kumeel gaadh kaaga xidhmayaa. akoonkaaga kaa xidhmay sidii aad ku furan lahayd maanta inaan nooga sheekeeyo. akoonkaaga kaa xidhmay ayaan doonayaa maanta inaan noo sheego. marka ugu horeysa waxaad samayn doontaa browserka ayaad soo furan doontaa. browserka markaad soo furatid browserka any browserka aad isticmaalaysid, haddii aad uc browser isticmaalaysid amba haddaad isticmaalaysid chromeka. badanaa chromeka dadku isticmaalaan oo chromeka ugu caansan. waxaad ku qori doontaa snapchat web login maad odhan doontaa. snapchat web login markaad intaa ku qortid waxaad geli doontaa official website-ka snapchat ku leeyahay. mar walba oo aad doonaysa inaad wax soo dhulin karayso amba aad wax doonaysa inaad gashato, mar walba waxaad gelaysaa waa inaad gasho mar walba akoonka officialka ah amba akoonka secure-ka ah. taana waxaad ku garanaysaa, waxaad arki doontaa xagga sare inuu saaran yahay quful inuu saaran yahay. website-kaasi waxay tilmaamaysaa inuu yahay official amba inuu yahay secure. password-keenaan gelin doonaa caadiga ahaa. keena amba username-ka. username-kan gelin doonaa. password-kan gelin doonaa. markaan password-ka geliyo wuxuu odhan doonaa website-yada badanaa waxay soo dhigaan I am not report. yacni waxaa laga yaabaa website-kan qof robot oo kale inuu isticmaali karo, ayay waxyaabahaasi uga baqanayaan. marka xaggaasaad tig soo saari doontaa si aad u tilmaamtid inaad robot ahayn. waxaad arki doontaa inuu dhex dhigay website-koodii rasmiga ahaa ee snapchat-ku iska lahaa. website-kooda rasmiga markaad gashid xagga waxaad arkaysaa inuu message soo dhigay welcome, calaamada saddexda calaamadood isa saaran. markuu saa inugu soo dhigo waxaan arki doonaa inay ku qoran tahay optionka lixaad inuu ku qoran yahay unlock my account. calaamada u socona waxa weeyaan unlock my account inaad tiraahdid. anuma dooni hadda inaan ku dhufto horaan unlock kusoo sameeyey. unlock my account baad odhan doontaa. si toosa wuxuu kuu furi doonaa snapchat-kaaga kaaga xidhmay, ama kaaga xidhmay si permanently ama si joogto ah, ama kaaga xidhmay si kumeel gaadha. labadaba akoonkaaga kaaga xidhmay uu kuu furi doonaa. markaad intaa sameysid unlock my account markaad ku dhufatid waxaad arki doontaa inuu message kusoo diri doono kaasoo odhanaya we have unlocked your account. kaasoo odhanaya we have unlocked your account. suldaan aadan tutu, thank you for your patience. wuxuu sheegayaa akoonkaagaasi inaan kuu furnay akoonkaaga in lagu guuleystay. success buu xagga sare kugu soo saarayaa oo tilmaamaysa in akoonkaaga in lagu guuleystay oo akoonkaagaasi kuu furmay. message-ka haddaad aragtid waxay ka dhigan tahay akoonkaagaasi kuu furmay. haddii kalena waxay ka dhigan tahay akoonkaagaasi weli kuma furmin, inaad dib u soo ceshato snapchat-ka. waxaan geli doonaa snapchat-kaygan dib u soo celin doonaa. waxaad gelin doontaa username amba email amba phone numberka aad isticmaalayso. password-kaad gelin doontaa.
so inta markaad geliso passwordkaaga iyo emailkaaga waxaad arki doontaa inuu toos ii geliyey snapchat-kaygii account-kaygii si toos ah inuu ii geliyey so laga yaabaa inuu kaaga xirmay snapchat-kaagu umuuro badan inuu kaaga xirmay baa laga yaabaa oo aad dib u samaysatay kolba snap cusub aad dib u samaysatay saa daraadeed si aad mar walba ay kugu dhicin inaad snapchat dib u samaysato waa weygan ugu fudud waxa weeyaan inaad tiraahdo unlock my account aad dib u soo ceshato markaa dhammaantiin asxaabta saa waa inaad samaysaa ma jecla haddii account-ka kaa xirmo dhammaantiin khayr baan soo rajeynayaa markaa